sound waves. Lesson 2 waxaan ku baran doonaa reflection noqodka of sound ee jabaqda ama codka and echo iyo wax loo yaqaan deegaanka. Lesson objectives hadafka casharka waxaa kamid ah number 2 and define arday waxaa rabaa markuu casharka dhamaado inuu qeexo maxaa la reflection of sound. So noqodka codka maxaa la ama noqodka jabaqda. Number 2 arday waxaa laga rabaa describe inuu qeexi karo echo maxaa la deegaan waa maxay deegaan. Number 3 arday waxaa la rabaa state inuu sheego waxyaabaha loo isticmaalo echoes deegaanka. 4 solve arday waxaa rabaa inuu xaliyo numerical problems mas'alooyinka ama tusaalooyinka ama problemada la xiriira echoes deegaanka. iyo demonstrate inuu sheegi karo ardayga an experiment tijaabooyinka reflection of sound jabaqda noqodkooda. iyo describe inuu qeexi karo ama inuu sheegi karo applications waxyaabaha loo isticmaalo reflection of sound noqodka codka. waxyaabaha loo isticmaalo reflection of sound codka soo laabta waxyaabaha applicationada loo isticmaalo. qodobka u dambeeya oo ah define inuu qeexo wax loo yaqaan reverberation. intoodaba casharkan ku arki doonaa insha Allah. casharkan guda galeena number 2 waxaan baran doonaa maxaa la reflection of sound. waa maxay reflection of sound ama noqodka jabaqda. jabtarka wave motionka waxaad ku soo barateen in properties of waves waxa kamid aha reflection codka wave inuu soo laabto. marka sounding saasoo kale wuxuu leeyahay propertiyadii dhamaan uu lahaa wave motionka uu leeyahay sound maadaama sound uu yahay wave nafsanatarkiisa. marka reflection of sound noqodka codka the bone maxaa la marka noqodka jabaqda waa the bouncing waa boodida uu soo boodo back dib u soo laabto sound codka markuu dib u soo laabto when marka it hits uu ku dhaco a hard surface ama uga adag ayaa iskoolad waxaa loo yaqaanaa reflection of sound. haddii lagu dharo waa maxay reflection of sound intaas aad ku qeexaysaa maxaa leedahay waa when it was the bouncing back of sound codka soo laabta codka dib u soo laabta when it hits markuu ku dhaco a hard surface uga markuu ku dhaco wave-ka soo laabta waxaa loo yaqaanaa reflection of sound. marka waxaan dhahnay soft surfaces waxyaabaha jilicsan sida dharka oo kale iyo caagagta waa are bad reflectors. noqodka reflectors of sound codkooda dharka oo kale iyo caagagta markay reflection ay sameynayaan reflection of sound digooda waa kuwa bad reflector ah. noqodka ay soo celiyaan waxay ku soo celiyaan qaab micnaa oo bad ay ku soo celiyaan micnaa reflection oo daciif ah ayay soo celiyaan mar walba dharka iyo waxyaabaha soft surfaceska. soft surfaceska sababtoo ah waxaa lagu dhahay absorb waxay nuugaan soundiga codka. waxyaabaha jilicsan codka way qabsadaan oo ma sii deeyaan marka reflectionkooda waa bad reflectors waay. that's why taasi waxaa sabab u ah the walls of auditorium meelaha wax lagu soo bandhigto iyo shaleemooyinka hoolalkooda waxaad arkaysaa are covered waxaa lagu daboolaa ama waxay ku dahaaran yihiin soft materials walxa jilicsan sida daaha oo kale. meelaha shaleemooyinka oo kale meelaha bandhigyada waxaad arkaysaa in hoolasha waxaa lagu wareejiyaa daah. macnaha waay daah loo wareejiyaa daah waxaa loo wareejiyaa waxaa waaye si reflectorka codka macnaha soo laabanaya si uusan u fara badanin maadaama meesha echo uu ku sameysmaayo. marka reflection of soundiga soo laabta wuxuu sameynaa absorb waxyaabaha jilicsan. haddii daaha iyo waxyaabahaas uusan oolin maxaa dhici lahaa codka wuu soo laabanaya dhowr mar ayuu soo laabtaa. codka soo laabta oo macnaha reflection of soundiga oo dib u soo laabta markuu codka fara badan waxaa loo yaqaanaa reverberation. marka sidaas ayaa shaleemooyinka iyo meelaha waxyaabaha lagu soo bandhigo waxaa loo isticmaalaa curtains sida dahmanka oo kale. dahmanka waa loo xiraa sababta loo xiraa waxaa reflection of sound codka soo laabanaya la rabaa inuu absorb uu sameeyo macnaha si codku u yaraado sound waves ka soo laabanaya si uu u yaraado ayaa waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano soft surfaces. the reflection of sound codka soo laabta iskoolad wave ka soo laabta iskoolad waxaa loo yaqaanaa echo deegaan allah. cod markuu meel gidaar ku dhaco oo dib u soo laabto waxaa loo yaqaanaa echo. marka echo maxaan ku definition gareynaynaa waa the reflection of sound jabaqda soo laabata ayaa iskoolad waxaa loo yaqaanaa echo deegaan ayaa loo yaqaanaa. codka soo laabta markuu meel ku dhaco dib u soo laabta. marka tusaale oo kale if you shout marka qofku aan qaylino ama warkalaab ama markaan sacbino near meel u dhow ee suitable reflecting objects walax ay reflection sameynaya sida tall building dhismaha dhaadheer oo kale iyo buuraha ama meelaha hoolasha ama qolalka eberka oo kale qofna aanan ku jirin ama wax alaab aanan ku jirin waxaa arkaysaa we will hear waxaa maqlaynaa the same sound markaan qaylino ama markaan hadalno
ama markii aan saxbin waxaad arkaysaa isla codkiyo soo laabta again later wax yar kadib codkiyo kugu soo laabta ayaad arkaysaa. marka the repetition soo laabashada of soundiga codka uu soo laabto caused by kaasoo sababa reflection of sound waves mawjada hirka soo laabta iskoolada waxaa loo yaqaanaa echo ayaa loo yaqaanaa. maxaa loo dhahaa marka codka soo laabta cod markuu meel ku dhaco soo laabta waxaa loo yaqaanaa echo. tusaale oo kale markaad dhismo daara dhaadheer aad taagantaha oo kale ama meelo buuraha oo kale ama hool meel qol hool oo weyn oo kale uusan alaab waxyaaba uusan ku jira markaad qeeliso marka lacala dhahdo kale caliyow markaa dhahdo waxaad arkaysaa caliyow oo dib ka soo yeeraya. marka caliyowga hore waa codkaagii sooriska waaye wuxuu ku dhacaa gidaarka markuu ku dhaco dib ayuu usoo laabtaa codkaas dib usoo laabtaa oo caliyowga dambe waxaa loo yaqaanaa echo dayaan allah. markaa dhahdo war iisoo qabo buugaas uu kaa daba dhahaya. marka waa sooriskii codkaagii hore ayaa dib usoo laabta markuu gidaar uu ku dhaco codka dib usoo laabtaa waxaa loo yaqaanaa echo. sidaad gabadha idinkaga muuqato kale halkaan gabadha taagan halkaan waa gidaarkii marka codaad dirtay codka markuu gidaar ku dhaco reflection ayuu sameeyaa of sounding dib ayuu usoo laabtaa codkaas dibka usoo laabta waxaa loo yaqaanaa echo dayaan ayaa loo yaqaanaa. waa kana isagoo sawirka faahfaahsan. uses of echo maxaa loo isticmaalaa waxyaabaha loo isticmaala echo maxaa kamid ah echoga waxyaabaha dayaanka isticmaala waxaa kamid ah number 1 determination si loo ogaado depth qotonka ama qotoda of oceans badaha waxaa isticmaalo maraakiibta oo kale. maraakiibta maxay sameeyaan waxay dirayaan waxa loo yaqaan echolocation echolocation macnaha maxaa waaye echolocation waa nidaam ama process waaye kaasoo lagu ogaado masaafada waxaa la dirayaa ultrasound ayaa la dirayaa ultrasoundkaas codka marka la diro oo echolocationka kadib wuxuu soo baarayaa markuu baaritaanka uu sameeyo kadib reflection codka ayuu soo laabtaa marka waxaa loo yaqaanaa echolocation allah. maxaa waaye waxaa isticmaalo sida markabyada oo kale ama doomaha isticmaala maxaa waaye echolocation ay dirayaan echolocationka marka waa nidaam waaye ama qaab waxay soo ogaanayaan masaafo ayuu kusoo ogaada masaafadaasoo uu u jiro salka hoose ee biyaha. tusaale kale hadii meesha ay jamal uu yahay ama hadii gunta hoose wax uu joogo waxyaabahaas idin marka waxay ku ogaanayaan sida gunta hoose ayaa lagu ogaadaa sida markabyada oo kale. markabka markuu hore transmitter oo diraa markuu baaritaan detection uu soo sameeyo uu soo baaray kadib reflection ultrasound ayaa macnaha la diraa kadib ultrasoundka ayaa reflection sameynaya markuu soo laabtana receiverka uu kusoo laabto waxaa loo yaqaanaa nidaamkaasi waxyaabaha isticmaalo echoiska ayaa loo isticmaala. number 2 echoiska waxaa isticmaalo waxaa loo isticmaalaa si cayaanada waxaa isticmaala sida baadsiidmeerta oo kale ama waxaa loo yaqaana kibiliga waa naqaanaa waa xayawaanka macnaha maalinkii oo dhan aan la arkin oo bada habeenkii qaraabta marka ayaga marka kibiliga iyo wax loo yaqaano kalluunka dolphinka nooc loo yaqaano labadooda bats iyo dolphinka waxay isticmaalaan echo sababtoo ayaga waa si fiican wax uma arkaan maadaama aysan waxba arkin sidaas marka waxay isticmaalaan oo ilaahay wuxuu ku manaystay ugu tiragalay waxay isticmaalaan echo ay isticmaalaan dayaan cod ay dirayaan codkaas wuxuu usoo ogaanayaa meeshay ugaartooda meeshay taagan tahay haddii lagu soo socdo haddii laga sii socdo waxyaabahaasoo idil wixii ayaga dhibaato u keenaayo macnaha cadowgoodana way u isticmaalaan waxyaaba ayaga breegooda ee raba inay quutaan way u isticmaalaan ayagoo dirsanaya echolocation. number 3 waa dolphinka hadaan ka sheekeyna waay kalluunka marka mid kale waa isla xiriiraa ayagoo isticmaalaya echolocation waa sheegnay waa echolocation waxa waaye waxaa la dirayaa ultrasound ayaa la dirayaa si loo soo ogaado gunta hoose masaafada uu sheega walaxda u jiro kadib reflection ayuu sameynaya codkii ayaa soo laabanaya. 4 echo waxaa isticmaalo armies ciidanka oo kale ama ciidamada badda oo kale si u ogaadaan gun positions meelaha ay u jiraan enemies cadow intuu u jiro oo kale waxay isticmaalaan echolocation ayagoo doomahooda saaran ama markabyadooda saaran waxay dirayaan echolocation marka wuxuu soo ogaanayaa inta uu macnaha u jiro qolada kale ama dadka la dagaalamayna cadowga ama meesha u jiro burcadbadeedka waxyaabahaas idil waxay kusoo ogaanayaan masaafada u jiro. 5 echo waxaa isticmaala geologist nimanka cilmi baarayaasha mineralska macdamaha iyo waxyaabahaas marka dhamaantooda qodobadan 5 qodob maxaa waxyaabaha loo isticmaalo dayaanka ay kaga faa'iideystaan waa kana marka shibiska oo kale marka maxaa waaye codka caadiga source codka la diraa kadibna waxay soo ogaanayaan gunta hoose biyaha meesha salka u jiro kadib ultrasoundkaas ayaa waxa uu sheegaya marka wuxuu leeyahay marka meelna transmitter waaye meelna wuxuu u sameeyaa receiverka
codkii uu diray iyo codka uu kusoo ogaaday sidaas ay ku isticmaalaan. iyo sidoo kale waxaan ku sheegnay batiska oo kale feedmerta oo kale ayada waxay diraysaa soundiga reflection ayaa dhacay marka reflection uu soo laabto kadib waxay ogaanayaan meesha ugaartooda u jiro kadibna automatically ayaga waxay isticmaalaan echoga iyo sidoo kale malaaga nooc loo yaqaano dolphiniska. And conditions for formation of echo shuruudaha marka echo iskama sameysma echoga shuruudo ayuu ku sameysmaa codka markuu soo laabanayo iskama soo laabto shuruudo ayuu ku soo laabtaa shuruudaha uu ku soo laabto waxa kamid ah number 1 the minimum distance masaafada ugu yar ee u dhaxaysa source codka la diray iyo the reflecting body meesha uu codka ku soo laabtay should be waa inay isku jiraan 17 meter 17 meter waa inay isku jiraan maxaa waaye codkii aad dirtay si macnaha echo ku soo laabto echo iskama soo laabto wuxuu ku soo laabtaa conditions waxa kamid ah codkii la diray meesha gidaarka markuu ku dhaco uu dib ku soo laabto marka codkii la diray iyo gidaarka waa inay u dhaxeeyaan 17 meter qofku waa inuu derbiga ama building dhismaha waa inuu u jiraa ama geedku meel everywhere meel walba codka soo celiya waxa loo yaqaanaa reflection of sound marka codkii la diray iyo meesha codka ku dhacay oo reflection ka sameeyo waa inay isku jiraan 17 meter wixii ka badan hadii 17 meter ka yar codka ku soo laabto waxa loo yaqaanaa reverberation macnaha codkii xuliyo noqonaa waa codkii afar badanayo qofka marka waa dhageys ay ka badanaa marka waxa la rabaa masaafada ugu yar waa inuu codka ku soo laabto 17 meter marka 17 meter kadib reflection wuu soo dhanqo karaa laakiin 17 meter wixii ka soo yaraado waxa uu bixin waxa loo yaqaanaa reverberation cod oo fara badan waa weynaana codkii qofku weynaana qof markuu maxamed uu leeyahay muhammad oo kale ayuu noqonaa goorma laakiin waa wixii ka yar 17 meter soo kale waxa loo isticmaalaa waxa lagu dhahay shuruudaha waxa kamid ah echo ku sameysmaa the wavelength irbaaca codka socda should be less than waa inuu ka yaraada the height joke of reflected body shayga reflection ka sameynaya iyo codka wavelength codka waa inuu yaraadaa wavelength codka waa inuu ka yaraadaa joog shayga reflection ka sameeyay alaashaan duu shayga reflection ka codka wavelength codka duu dheer yahay على يا شيء إنه عدك كده بحوامه صاروا كمرة مركز هاي جوك شيء وإنه كيرادا سدح the intensity إتالكا لو يقال of sound إتالك جبقة أما energy عدك سي reflection سمينا يا وإنه نقدر ميت sufficient أو كفلا so that it can be here وإن لما قلنا after reflection مركو reflection سمي كذب وإنه عدك لما قلنا مركو عدك وإنه أوليه هاي sufficient intensity of sound جبق معناه عدك إتال كفلا أما energy فربضن وإنه عدك إيشا واي ولو وصعدا وحنا على the distance مسافة traveled وكسعدا the distance مسافة traveled وكسعنايو by sound عدك to create so أو echo ونقنا يلا باللابك مسافة علشان عدك لد قفا كلو أنت تاجن هالكا هو والكي أم دربك سوقات عدك مركز درتو يعدك صور لابتا وعلوي قانا echo وإنه النقطة لبلاب كديستانسينج مسافة كي لا دري ديستانسينج لا بحي إيه ديستانسينج كوسا لابتي ونقولنا لبلاب ديستانسينج وإيكو كوسا مركا ولبلا لو رفت ديستانسي واي مرك ديستانسينج معاوي ومسافة ولا عيسى عدك ماشي لا قدري عدك ماشي سوعليه لبضن وتاجنتاي ولبلاب كي عدك إيكو كوسا مسموه the echo time back and forth عدك إيكو جا هراء الجدال وإنه نقطة 0.1 second time ka waqtiga la rabo echo inuu ku sameysmo waa 0.1 second 0.1 second kadib macnaha 0.1 second macnaha the minimum distance the minimum echo time waa waqti ugu yar waa 0.1 second kadib echo inuu sameysmo la rabo echo inuu iska maqnaado lama rabo waxa la rabaa eber dhibic hal second kadib codka inuu ku soo laabto marka back and forth loo yaqaan marka waxay noqonay laba u qayb waa 0.05 iyo 0.05 codka markuu baxayo waa 0.05 هذا مركو صلابته و 0.05 مرك echo time ونقولنا مركا و 0.1 second و ever دبي حال second كده بعرضه echo أياكو سمسمع مركا عدد الأول echo time كواكنا مرك صالو كdistance أو كمرك لربع إن الصورة دي وعقوله لسا speed كعبارة عدك أو لقول في time echo time كا أو هاللو قيب شلابه مرك دي دعو تاعنا تاع distance T دوا time V دوا speed مرك هاد solid surface waxyaabaha adag ayaa are the best reflection sound waves waxyaabaha adag ayaa sameeya reflectionka ugu wanaagsan ama ugu fiican oo codka soo celiya tusaale aan aragna marka example halkan ku qaadanayna la xiriira echo-ga
waxaa loo markaan echo dayaan ayaa AC la maqlay after 5 second 5 second kadib echo ayaa la maqlay at 25 degrees centigrade oo heerkulka habadana waa 25 degree xaraarada habada waa 25 degree centigrade fine waxaa la rabaa in la soo raadiyo the distance masaafada u dhaxaysa the source of sound codkii baxay and the reflecting surface iyo meesha uu ka soo laabtay marka waxaa la rabaa echo time-ka echo-ga soo laabtay codkii baxay meesha markuu gidaarka uu ku dhacay reflection ayuu sameeyay marka waxaa la rabaa masaafada u dhaxaysa source-ka codka meesha uu ka baxay iyo meesha uu ku dhacay masaafada u dhaxaysa in la soo raadiyo la rabaa marka maxaa sameynaynaa given aan leenahay distance maxaa lagu helaa distance waxaa lagu helaa masaafada waxaad ku helaysaa velocity oo lagu dhuftay time oo loo qeybshay laba qaacidadaas ay isticmaalaysaa laakiin intaadan qaacidada isticmaalin waxaad fiirinaysaa waxaad haysato iyo wixii kaa maqan anaga hadda oo kale waxaan haysanaa t-da waan haysanaa waa 5 second distance-gana la diran waa kan laakiin maxaa naga maqan speed-ka naga maqan speed-ka sida cashar kore aan kusoo qaadanay waxaad soo raadinaysaa speed of sound in air ayaa soo raadinaysaa waxaad samaynaysaa 330 ayaad waxaad ku daraysaa 0.6 kadibna t-di temperature-ki iyo heerkulka ama xaraaradii ayaad waxaad ku dhufanaysaa automatically marka waxaad soo raadinaysaa velocity-ga speed-ka ee hawada marka speed-ka hawada marka intaan soo dhufano temperature marka ku bedelo 25 degree centigrade waxa inoo soo baxday 345 meter per second marka meesha waxa ku bedelayna v-dan ku bedelayna marka qaacidada isticmaaleena waxa leenahay qaacidada d-da distance-ga waxa lagu helaa leenahay speed-ka oo lagu dhuftay t-da oo loo qeybshay laba marka labada maxaa waa echo distance-ga labada masaafo go and back waa marka speed-ka waxaan haysanaa 345 waxaan ku dhufanaynaa echo time-ka oo 5 second waxaan u qaybinaynaa labo marka hadda calculation gelin waxaa noo soo baxayso 862.5 oo meter ayaa noo soo baxayso example-ka labaad buug uu qoray muxuu qoray Ibrahim ayaa virus wuxuu riday egan Ibrahim wuxuu riday qore ayuu wuxuu ka riday in front of building dhismo horteeda ayuu xabadu ka riday macna xabad ayuu riday dhismaha iyo Ibrahim inta u dhaxayso waxa marka waa 100 iyo qoriga xabadii ka baxday source-ka iyo dhismaha inta u dhaxayso waa 167 meter ayay isku jiraan if the speed hadii xabaaraha of the sound ee jabaqda hawada uu yahay 334 meter per second calculate waxaan soo saaraynaa the time waqtiga in which taasoo hears uu Ibrahim uu ku maqlayo echo-ga maadaama xabaaraha hawada uu yahay 334 meter per second Ibrahim qoriga uu haysto xabad meesha ka baxday iyo darbigana inta u dhaxayso waa 167 oo meter ay isku jiraan marka waxaan soo saaraynaa xabadii qoriga la riday xabadii baxday soundiga codka iyo gidaarka markuu ku dhacay dhismaha inta u dhaxaysa soo raadinayna hadii xabaaraha hawada ay tahay 334 maxaa leena marka distance ay haysanaa 167 meter speed-ka xabaaraha hawada waa 334 echo time-kana laga rabaa marka uu ku soo laabtay marka t-da maxaa loo helaa t-da waxaad ku helaysaa laba waxaad ku dhufanaysaa d kadib waxaad u qaybinaysaa velocity mar walbo waxaad sheega hada distance raadinaysaa distance waxaad ka dhiganaysaa subject hada t-da aad t-da ka dhiganaysaa subject hada velocity u yahay velocity-ga mar walbo marka hal qaacida iska xifdinaysaa tusaale kale ama velocity-ga xifdi ama waxaad xifdinaysaa velocity-ga waxaa loo helaa marka labo oo lagu dhuftay distance oo loo qeybshay time ayaad ku helaysaa marka mar walbo qaacidada mid ayaad dhigaa ka qabanaysaa marka waxaad sameynaysaa marka intaas sameyso waxaa leedahay labo waxaa ku dhufanaysaa distance-ga waa 167 kadib waxaa u qabanaysaa 334 marka intaas marka isku calculation ay gelin waxay noo soo baxayso 1.0 second marka distance-ga u dhaxeeya qoriga la riday xabadii dhawaaqa soo saartay iyo darbiga wuxuu ahaa 167 meter xabaaraha hawada markaasna wuxuu marayay 334 meter per second marka echo time-ku ku soo laabanaya waa 1.0 second kadib ayaa eekada la maqlayaa example-ka saddexaad wuxuu ku dhahay buugga muqarrarka ee wasaaradda waxbarashada waxaa lagu dhahay marka emaanin ayaa stands wuxuu taagan yahay between two parallel cliffs laba cirif wuxuu taagan yahay oo barabara ah laba cirif dhexdooda ayaa nin taagan and fires again kadibna qori ayuu riday xabad ayuu riday nin ayaa wuxuu taagan laba gidaar laba cliffs laba cirif dhexdooda ayuu taagan kadibna xabad ayuu riday he hears wuxuu maqlay two successive echoes laba echo isdaba xiga ayuu maqlay laba echo laba dayaan ilaa maadaama laba cliffs uu taagan yahay wuxuu maqlay laba dayaan xabad ayuu riday kadibna laba dayaan ayuu maqlay mid wuxuu maqlay 3 second mid wuxuu maqlay after 3 second mid wuxuu maqlay 3 second kadib ayuu mid maqlay midna wuxuu maqlay 5 second after 5 second 5 second kadib ayuu maqlay maadaama laba cliffs uu yahay cliffs codku echo uu soo celiyay wuxuu soo celiyay 3 second
kilifka kale wuxuu soo celiyay 5 second marka waxaa rabaa distance masaafada u dhaxeyso labadooda labada kilifood masaafada u dhaxeyso aan soo saareyna speedka sound xawaaraha badana waxa uu qaadataa lagu dhahay 330 meter per second maxaa sameeynaa marka waxaan haysanaa speed of sounding oo 330 meter per second time koowaad waa 3 second time labaadna waa 5 second waxa laga marka distance aan naga rabaa marka maadaama laba time aan haysano waxaan ku soo xalineynaa labada time ayaan ku soo xalinay kadib labada distance inoo soo baxda aan isku dareynaa maadaama la rabo labada clipsot distance u dhaxeeyo waxaan sameeynaa d1 ayaa leenahay qaacidada koowaad aan isticmaalay maxaa waaye waxaan isticmaalaynaa speedka aan ku dhufanaynaa t1 ka kadib waxaan u qaybanaynaa labo marka 330 waxaan ku dhufanaynaa waxa loo yaqaan 3 second waxaan u qaybanaynaa labo distance-ga clips koowaad clipska soo saaray 3 second kadib echo soo saaray wuxuu u jiraa ninka qoriga riday 495 echo labaad waxa raadinaynaa time-ka labaad aan ku shaqeynaynaa distance-ga isla qaacidada isticmaalaynaa meesha speed mar walba waxaan qaadanay 330 echo labaad isticmaalay time-ka waa 5 second laba aan qaybinaynaa kadibna distance-ga u dhaxeeya echo uu soo saaray 5 second kadibna waa 825 meter kadib waxaan sameynaynaa labada distance ayaan isku dareynaa waxaan leenahay d1 plus d2 waxaan leenahay 495 meter waxaan ku dareynaa 825 meter kadib waxay noo soo baxayso 1320 meter marka labada masaafood ka soo qaad inuu yahay clips intan uu yahay clipska ninka halkan ayuu taagan yahay marka xabada markuu riday kadib wuxuu maqlay ka soo qaad inta wuxuu ku soo laabtay 3 second clipskan wuxuu ku soo laabtay 5 second marka labada clip maadaama laba echo soo saaray labadan clipood waxay isku jiraan labada cirif waxay isku jiraan wax masaafo ah 1320 kan derbiga wuxuu u jiraa kan 3 second wuxuu u jiraa 495 kan 5 second kan wuxuu u jiraa 825 meter labada marka la isku darana waa 1320 meter waxaan filayaa in la fahmay laws of reflection of sound xeerka jabaqda ee codka ku soo laabta laws of reflection sida aan ciwaan kaaga muuqdo waa laws of reflection marka soundigan waa sida laws of reflection ayuu ku shaqeeyaa the sound wave codka jabaqda hirka obeys wuxuu sheegaa ama wuxuu cadeecaa laws of reflection xeerka laws of reflection noqodka ayuu sameeyaa laws of reflection waa jabtarka reflection of sounding ee reflection of light ayaa lagu qaataa maxaa marka laws of reflection wuxuu ahaa laws of reflection wuxuu ahaa inta inay tahay ka soo qaad gidaarkii codka soo saaray marka maxaa sameynaynaa laws of reflection wuxuu ahaa incident ray iyo incident soundiga iyo reflected soundiga waxay ku dhacaan one area hal meel ay ku wada dhacaan sidoo kalena wuxuu halkaas ka sameysmaa wuxuu ahaa angle of reflection angle of incidency iyo angle of reflection am incident ray oo loo yaqaan incident sound iyo reflected ray oo loo yaqaan reflected sound codka soo laabta ayuu laga marka reflection of soundiga waxa marka waxa angle of incidence equal angle of reflection macnaha jabtarka reflection of light ka ayaad aad kaga fahmaysaa marka lowska laga hadlayo reflection of soundiga marka applications waxyaaba loo isticmaalo reflection of sound codka soo laabta echo waxyaaba echo isticmaal waxa kamid ah waxa loo isticmaalaa hearing aid waxyaaba maqalka loo isticmaalaa hearing aid gargaarka maqalka maxaa sida sawirka idin kaga muuqdo dadka xoogaa dhigaha jiglaha ka kale isbitaalada waxay u soo qoraan qalabkaas waxa loo yaqaanaa hearing aid ayaa loo yaqaanaa hearing aid marka maxaa waaye is a device waa qalab aalad kaasoo dadka maqalka ku adag ay isticmaalaan maxaa marka sababtu maxay tahay sound waveska ayaa received waxaa hela by hearing aid maqalka geedka qalabka device-ka ayaa marka u horeeyo sound waveska ku dhacaya kadib reflection ayuu sameeyaa markuu reflection sameeyo kadib area dhigta duleelka narrowga ayuu qofka automatically uu ku dhacaa macnaha codka markuu ku dhaco hearing aid qalab markuu cod ku dhaco kadib reflection ayaa sameeya reflection kaas ayaa dhigta automatically qofka macnaha uu ku maqlaa marka waxa loo yaqaan hearing aid waxaa kaloo kamid ah waxa loo yaqaan bulb horn sida sawirka idin kaga muuqdo sheygaas oo kale baabuurta iyo basaska ay isticmaalaan waxa loo yaqaan bulb horn asna bulb horn-ku waa a cone shaped windy waa bahal ka samaysan windiga qalab waaye kaasoo ka samaysan sida dabeelaha oo kale kaasoo loo isticmaalo signal ka soo raadiya sida macnaha baaskiilada oo kale iyo baabuurta iyo basaska iyo doomaha iyo waxyaabo la midka ayaa loo isticmaalaa bulb horns ayaa loo yaqaanaa applications saddexaad ee loo isticmaalo reflection of sound waxaa kamid ah stethoscope qalab loo yaqaan oo ah dhaqaatiirta ayaa bada isticmaalo waxaana loo isticmaalaa marka qofka wadnaha meelahaas oo kale laga baarayo stethoscope marka maxaa waaye waa medical instrument waa qalab caafimaad used ay isticmaalaan dhaqaatiirta dhaqaatiirtaasoo dhegeysanaya soundiga codka produce uu soo saaro
within a human body jirka bini'aadanka khaasatan wadnaha iyo sanbabada oo kale ayaa loo isticmaalaa reflection ayuu sameeyaa kadibna qofka ayuu maqlaa marka intaas maxaa marka waa applications of reflection of sound cashirkeena waxaa u dambeeya reverberation waxa loo yaqaano reverberation maxaa marka waa codka soo laabta 17 mitir wax ka yar ayaa waxa loo yaqaan reverberation codka faraha badan oo qofku uusan u dulqaadan karin oo faraha badan waxa loo yaqaanaa oo bato echo time macna echo ma dayaan ma waa dayaankii cod u eg waa laakiin wuxuu kasoo laabtaa dayaanka distance ka yar ayuu kasoo laabtaa waxaan loo yaqaanaa reverberation marka waxaan ku definition gareynaynaa is a series of reflections waa codka soo laabta oo faraha badan that falls on ear kaasoo ku dhaca dhegta from various reflectors asoo reflectiono fara kala duwan ka imaana one after another mid kale weliba in a closed room haddii meel xiran oo kale ku dhex jirto wuxuu sameynayaa continuous rolling sound codkii wareeg fara badan ayuu sameynayaa tusaale markaad qol ewer aad ku jirto oo fara badan oo kale ayuu sameynayaa waayahay intaas ayaan kaga bixinaa lessonkii labaad ee cashirka aan kasoo barnay reflection of sound and echoes wixii su-aalay insha allah waad ila soo xiriiri kartiin share garey subscribe inoo saar channelka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu